heshiis kordhinta xiddiga reer Masar iyo weliba kooxda kubadda cagta ee Liverpool Mohamed Salah ayaa hadalhayn badan ay ka taagan tahay, waxaana la isweydiinayaa haddii Liverpool uu u siixi doono qandaraas cusub uu ku sii joogayo gegida caanka ah ee Anfield Stadium. waxaana ciyaaryahanka heshiiska uu kula jiro kooxda kubadda cagta Liverpool uu dhacayaa xil ciyaareedka soo aadan ama sanadda xigta ee 2023. ciyaartoydii hore ee xulka Ingiriiska iyo kooxda Manchester United Rio Ferdinand oo hadda ah khabiir iyo ninka looga dambeeyo wararka xanta suuqa kaliibsiga ciyaartoyda wariyaha reer Talyaani ee Fabrizio Romano. macallinkii weynaa ee kooxda Arsenal una dhashay waddanka Faransiiska Arsene Wenger ayaa ka hadlay mustaqbalka ciyaaryahanka Liverpool ee Mohamed Salah. Salah ayaa la rumaysan yahay inuu doonayo inuu qaato mushaaraad ka badan ciyaartoyda hadda isaga ka badan ee Premier League dheelo. marka loo eego Salah ma aqbalayo taas sababtoo ah haddii aad eegto kooxaha kale ama wadamada kale ee kubadda cagta ka jirta qaaradda Yurub kuwooda ugu sareeya ma ahan Premier League oo kaliya. ciyaartoydu waxay qaataan mushaar waaliya, haddana waa ciyaartoy caadi ah oo ma gaarsiisano heerka hadda uu gaaray Mohamed Salah, ayuu u sheegay Fabrizio Romano iyo weliba sidoo kaleeto Ferdinand iyagoo si toos ah isu wareysanaya barta YouTube-ka ee Fabrizio Romano. Salah mar walba waa ciyaaryahan diyaarsan, mar walba waxa buu kooxda gaarsiiyaa heer aad u sareeya ayuu ku ciyaaraa. xil ciyaareedkan oo dhanna inta badan ma aha mid dhaawac ah, waxaana kooxda inta badan u dhalayaa goolal muhiim ah. hadda waa 30 jir, wuxuu ku fikirayaa inuu galo heshiiskiisii ugu dambeeyay Liverpool isagoo doonaya in qandaraas lacag aad u sareysa uu ka qaato, sidaas waxaa yiri Fabrizio Romano. Mohamed Salah marka loo eego kaalinta uu kaga jiro Liverpool waa ciyaartoyda isaga iyo Virgil van Dijk, Thiago Alcantara, saddexda ciyaartoy ee ugu mushaarka badan kooxda kubadda cagta Liverpool. waxaa jira ku dhawaad 13 ciyaartoy kuwaas oo Mohamed Salah kaga mushaar badan Premier League, laakiin intooda badan aysan gaarin tay ahaan. haddii aan eegno ciyaaryahanka ugu mushaarka badan Premier League waa Cristiano Ronaldo oo da'diisu ay 37 sano jir tahay, kaasoo Manchester United u ciyaara. waxa uu qaataa 510,000 isbuucii. sidoo kale Kevin De Bruyne ayaa 400,000 isbuucii ka qaata kooxda Manchester City. golahayaha United ee David De Gea ayaa 375,000 qaata. waxaa sidoo kale liiskan kaalinta afraad ku jira Jadon Sancho oo Manchester United hadda ka qaata 350. marka loo eego Sancho wuxuu ku cusub yahay Manchester United inkastoo aanu dhalin goolasha uu dhaliyo Mohamed Salah. Rafael Varane oo Real Madrid kaga yimid Manchester United ayaa 340 qaata. sidoo kale Romelu Lukaku oo inta badan keed ka ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa mushaarahan u qaata 325,000. ciyaaryahanka inta badan aan u adeegsan Pep Guardiola ee Raheem Sterling ayaa qaata 300,000 isbuucii, waxaana uu yahay in Salah ciyaaryahankan uu ka badan yahay ku dhawaad 120,000 isbuucii. waxaana Salah inta badan Liverpool adeegsata halka Sterling uu mararka qaarkood kursiga keedka kaga ciyaaro Pep Guardiola ee Manchester City. Jack Grealish ayaa 300,000 qaata. N'Golo Kante oo ka tirsan kooxda Chelsea ayaa qaata 290,000 isbuucii. Paul Pogba ayaa sidoo kale qaata isna 290,000, waxayna isku mushaar yihiin ciyaaryahanka N'Golo Kante. Timo Werner oo kooxda kubadda cagta Chelsea inta badan aysan adeegsan ayaa mushaarahan u qaata 270 iyo weliba 2,000 isbuucii. sidoo kaleeto John Stones oo ka tirsan Manchester City ayaa 250,000 qaata, halka ciyaaryahanka da'da ah ee Manchester United Edinson Cavani uu qaato 250,000. ma jiro ciyaaryahan ka tirsan Liverpool oo qaata 250,000 isbuucii, waxaana ciyaartoyda ugu mushaarka badan kooxdaas ay yihiin xidigaha kala ah Thiago Alcantara, Virgil van Dijk iyo weliba ciyaaryahan Mohamed Salah. Salah ayaana doonaya in ciyaartoyda tay ahaan uu kaga wanaagsan yahay Premier League aysan marnaba dhicin in isaga ay ka mushaar badnaadaan. haddaba haddii aad tahay taageere kooxda kubadda cagta Liverpool, Salah imise ayaad u siin lahayd mushaar ahaan?